أبدأ إسلام البنتي هذا وصلت فضل سبسكرايب صار هذا هو اللي شفت لايك تا هي لعبة بس هذا حنون كل أيام على ويلت ده بتشير أيه هو يدي وتحابي حبسي sababtayna in lagu xukumo dil toogasho wiilkaad arkaysan sawirkiisa magaciisa waxaa la AJ hooyadii magaca waxaa Amanda hooyadu waxay gacanteeda ku dishay walaashii oo la Andrian iyagoo maalmaha kamid ah barkad ku ciyaaray ay hooyadiisii oo la kaca inanteeda barkadii qoosay halkaan ay ku dhimatay meesha waxaa jooga wiilka 7 jirka AJ isla markaa wuxuu arkay hooyadii oo dilaysa booliska ayaa yimi hooyada xabsiga ayaa loo taxaabay isla waqtiga aanu joogin markhaati kale aan ahayn AJ wuxuu sameeyay sawirka halkeed ka muuqda ayuu sameeyay sawirkani waxa weeyaan hooyada oo barkada ilmaha ku ridaysa sidaa darteed ayaa hooyadii maxkamadda la soo saaray isla meeshiina loogu yeedhay AJ oo 7 jir ahaa oo hooyadii dhashay markii maxkamaddii loogu yeedhay ayaa lagu yidhi AJ oo bal sawirkan aad sawirtay nooca dee wuxuu yahay isla markiina uu sheegay waxa gawaabintii inuu yahay barkadii qofka sawir ku jirtay hooyadii wax yar ee madax yar ee madowna uu yahay walaashii hooyadii oo walaashii ku ridaysa boolkii ama barkadii sidaasna ay ku cadaatay hooyadii inay tahay dilaaga Andriana oo ahayd gabadh walaashii AJ oo 8 jir ah sida la sheegayo Andriana iyo AJ waxa ahay labo walaalaha oo haddana si saaxiib isku dhawaa sidaa darteed oo AJ ku dhiiranaaday in hooyadii loo taxaabo xabsiga kadib markii ay fil dambiye dilkiis u geysatay saaxiibadiis Xumeed ama walaashii Andriana oo 8 jir ahayd maxkamadda markii la joogay ayaa AJ waxa hal mar laga codsaday fadlan ma aqoonsan kartaa hooyada halkan fadhida AJ wuxuu yiri hooyadeyna halkan joogto aniga laakiin ma rabeen fiiriyo maxkamaddu waxay mar labaad ka codsatay fadlan isku day inaad hooyada aqoonsato waxayna rabtay inuu mar qura eego oo aanu gartay hooyadey wata isla markaa oo hal mar eegana dhammaan waxa ilmihiisa ku soo istaagtay ilmihiina way kala joogsan weyday isla sidii ugu dhaqsiyaa badneedna dib ayuu wijigiisa uga soo celiyay hooyadii maxaa yeelay muusan rabay inuu sii eego wijiga hooyadii maxaa yeelay wijiga hooyadii oo ahaa wiji uu nacay kadib markii ay si ula kaca u dishay ama dilkeeda u sababtay saaxiibadii ama walaashii rumaad ee Andriana halkaas ayaana gabadhii Amanda Lewis ahayd lagu taxaabay xabsiga qaybta dadka dilaaga loo taxaabo wiilkii AJ ayaa wuxuu noqday markhaatigii ugu yaraa ee dunida ku nool oo 7 jir ahaa runtii markuu maxkamadda joogay sida uu u jilayo runtii waa laga yaabay maxaa yeelay wuxuu ku dhiiraday in uu hooyadii ku cadeeyo dambiga ay keysay dambigaas oo ahaa inay dishay walaashii ama saaxiibadiisii ugu dhaweyd ee waqti xaadirka dunida ku noolay aad baan islaamay haddaad mar labaad ku cusub tahay fadlan subscribe-ka ilaawin channel-kan idinka ayaa iskale peace